بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا مركله iyo barnaamijkii xulashada wararka qodobada saaka barnaamijka aan idin kugu hayno waxa kamid ah waa xuutiyiinta Yaman oo weerar culus oo duqeymaha xalay ku qaaday dekada Makha ee gacanta ay ku hayso dawladda caalamku aqoonsan yahay iyagoo sheegay inay gubeen maraakiib hub ka keentay Sacuudiga sidoo kale barnaamijka waxaan idinkugu haynaa And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. waa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo sheegaya in uu ku dhawaaqi doono marinka Hormuz in wasiirku dhigaya Mareykanku uu la wareegayo markab kale oo Imaaraadka Carabta uu leeyahay oo lagu weeraray marinkaasi Hormuz habeennimadii xalay Iran oo si degdeg ah uga jawaabtay hadalka Trump ayaa si cad u sheegtay in aan la qabsan karin marinka Hormuz ciidanka ilaalada kacaanka Islaamiga ee Iran oo sheegaya inay soo rideen diyaarad dagaal oo Mareykanku uu leeyahay saraakiisha militariga Israa'iil oo la yaabay sida degdeg ah ee Iran dib ay u dhisayso awoodeeda ciidan heshiiska xabajoojinta ee u dhaxeeya Mareykanka iyo Iran oo ku eg maalinta Isniinta ayaa la sheegayaa in aan la kordhin doonin calaamad muujinaysa dagaalka dib inuu qarxi karo hogaamiyaha Xisbullah Sheikh Naciim Qaasim oo dawladda Lebanon ku eedeeyay isdhiibid isagoo ku adkaystay in Xisbullah hubka aysan dhiibi doonin dhammaan wararkan iyo weliba qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo kordha intaynu hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka xulashada wararka soo dhawaada mar kale daawadayaal si aad ula socoto una hesho wararkan barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbinayno haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waadna ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka saaka waxaynu ku bilaabaynaa colaadda Yaman iyo wararkii ugu dambeeyay iyadoo dagaallo ay socdaan ayaa habeennimadii xalay sida halkan idinkaga muuqata xuutiyiintu waxa ay duqeeyeen dekada Makha ugu yaraan 6 qof oo rayid ah ayaa xalay lagu dilay duqeyn gantaalo oo xuutiyiinta ay ku qaadeen dekada magaalada Al-Makha ee galbeedka Yaman iyadoo weerarka sidoo kale uu sababay khasaare hanti wakaaladda wararka Yaman ee Saba oo soo xiganaysa ilo military ayaa sheegtay in xuutiyiintu magaalada Makha ay ku weerareen 6 gantaal isla markaasna ay sababeen dhimashada iyo dhaawaca dadka rayidka halka tiro doonya kalluumaysiga dab uu qabsaday difaaca cirka ee dawladda Yaman ayaa sidoo kale waxay sheegeen inay soo rideen dayuurad daroon ah oo ay leeyihiin xuutiyiinta xilli ay sii kordhayaan weerarada lagu baagsanayo magaalada dekada leh ee Makha kooxaha gurmadka iyo ambalaasyada ee ku sugnaa goobta la weeraray si ay u gaaraan dhibanayaasha ayaa waxaa la sheegay in mar kale carqalad ay kala kulmeen kadib weerar dheeraad ah oo dhacay geesta kale afayeenka militariga xuutiyiinta General Yahya Sariic ayaa dhankiisa sheegay in ciidankoodu gantaalo plastic ah ay ku weerareen bartilmaameedyo ku yaala magaalada Makha waxaana uu sheegay in bartilmaameedyadu ay ahaayeen goobo ciidan iyo sidoo kale hub iyo dooye military si kastaba ha ahaatee dawladda Yaman waxay sheegtay in weerarka uu hareeray goobo ay degan yihiin dad rayid ah isla markaasna khasaaraha dhimashada iyo burburka wali la qiimeynayo isla wararka colaadan xuutiyiinta Yaman ayaa habeennimadii xalay sidoo kale waxay weerar ku qaadeen xarun shirkadda Aramco ee shidaalka Sacuudiga ku leedahay magaalada Najran ee koonfurta galbeed ee dalka Sacuudiga ilo wareed military ayaa u sheegay wakaaladda wararka Saba ee xuutiyiinta in weerarka jawaab u ahaa diyaarada military oo Sacuudigu leeyahay kuwaasi oo lagu eedeeyay inay galeen hawada gobolka Sacda ee dalka Yaman ilaa hadda
dowladda Sacuudiga iyo shirkadda Aramco kama aysan hadlin sheegashada Xuutiyiinta ee weerarkan. Sidoo kale weli lama oga cidda wax ku noqotay goobtaasi la weeraray iyo khasaaraha soo gaaray. Waa hagaag wararka Yemen inta aynu kaga gudubno markan aynu eegno magaalada Beirut ee caasimadda waddanka Lubnaan iyo hadal weyn oo ka soo yeeray hogaamiyaha ururka Hezbollah Sheikh Naim Qasim ayaa si adag u dhaliilay dowladda Lubnaan iyo wadahadallada ay kula jirto Israa'iil isagoo ku nuuxnuuxsaday in kooxdu aysan aqbali doonin waxa uu ku tilmaamay isdiibid. Qasim oo ka hadlayay sanad guurada dagaalkii 2006 ayaa sheegay in Hezbollah ay sii wadi doonto iska caabinta, wuxuuna ku dooday in kooxdu ay ka hortagtay in Israa'iil ay gaarto dhammaan ujeedooyinkeedii dagaalka 2026 dhacay. Waxaa sidoo kale uu dhaliilay heshiiska Mareykanka oo dhexdhexaadinayo ee dowladda Lubnaan iyo Israa'iil isagoo xukuumadda Lubnaan ku eedeeyay inay tanaasul u samaynayso Israa'iil. hadalka Qasim ayaa ku soo aadaya xilli muran xooggan uu ka taagan yahay hubka dhigista Hezbollah iyo joogitaanka ciidamada Israa'iil ee koonfurta Lubnaan. wasiirka gaashaandhigga ee Israa'iil Israel Katz ayaa ku nuuxnuuxsaday in ciidamadu aysan ka bixi doonin koonfurta Lubnaan ilaa Hezbollah hubka ay dhigto. dowladda Lubnaan ayaa dhankeeda sheegtay in arrimaha la xiriira hubka dhigista iyo cidda kormeeraysa ay weli wadahadal ku jiraan iyadoo Washington ay sii wado dadaalada lagu hirgelinayo heshiis dhexmara xukuumadda Lubnaan iyo sidoo kale Israa'iil. waa hagaag markan waxaynu eegaynaa war Mareykanka iyo Israa'iil la xiriira oo si weyn gudaha Israa'iil uga dhaliyay hadalhayn baraha bulshadana si weyn looga falcelinayo. waa warka la leeyahay Trump wuxuu u daba maray Netanyahu xisbiyadii mucaaradka iyadoo doorashada Israa'iilna bil kadib la qaban doono. aynu eegno warka ugu dambeeya amuurtan. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxaa la sheegayaa in maamulkiisu uu la samaynayo xiriiro hogaamiyaasha mucaaradka Israa'iil xilli ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu uu wajahayo cadaadis siyaasadeed ka hor doorashada 27 Oktoobar. sida ay sheegtay shabakadda wararka Axios, siyaasiyiin ay ka mid yihiin Gadi Eisenkot, Naftali Bennett iyo Yair Lapid ayaa ka walaacsan in Trump doorashada uu ka taageero Netanyahu, waxaana Washington ay gaarsiiyeen fariin ay ku dalbanayaan in ay dhexdhexaad ka ahaato tartanka doorashada. ra'yi ururin dadka laga ururiyay ayaa waxay muujinaysaa in isbahaysiga Netanyahu uu heli karo qiyaastii 49 ilaa 53 kursi, laakiin ma heli karo dhismaha xukuumad waayo waxaa loo baahan yahay 61 kursi in laga helo, taasi oo ah aqlabiyadda baarlamaanka Israa'iil oo ka kooban 120 kursi. geesta kale xiriirka Trump iyo Netanyahu ayaa la sheegay inuu imika naxuusay iyadoo khilaafka mustaqbalka Gaza uu ka mid yahay sababaha keenay heshiiskaasi inuu gaabis noqdo. Netanyahu ayaa diidan qaabka qorshaha Mareykanka uu u marayo hubka dhigista Xamaas iyo bixitaanka ciidanka Israa'iil. Washington waxay doonaysaa in doorashada Israa'iil aysan carqaladayn qorshayaasheeda gobolka oo ay ka mid yihiin mustaqbalka Gaza iyo dadaalada heshiis lala gaaro Sacuudiga. doorashada Oktoobar ayaa sidaas darteed muhiim u noqon karta mustaqbalka Netanyahu. وهاجاك warkaasna inta aynu kaga gudubno waxaan u gudbaynaa wararkii ugu dambeeyay ee xiisadaha colaaded ee ka aloosan gobolka bariga dhexe. Trump oo leh marinka Hormuz waxaba laga doodayayba cidda maamulaysa, laakiin wuxuu leeyahay Mareykanka qaadan doona gebigiisaba, yacni dhul Mareykan buu noqon doonaa. Iiraan warkaas waxay tiri kaftan ayaa loo arkaa bay tiri waxaas oo kale. wararkaas iyo qodobo kale aynu u gudubin markan intaan u gudbin wararkaas qadar xayisiina. qari online waxa uu diyaar idin leeyahay barashada maadooyinka quraanka kariimka, higaada iyo asaasiyaadka diinta islaamka, iyadoo ardaygu uu helayo hal wiig oo tijaabo ah inta uusan arday si rasmi ah uga noqon xarunta.
taasoo ah waxyaabaha ay gaarka la yihiin macallimiintu waa khuburo macallinka ugu yarna waxa uu leeyahay 5 sano oo khibrada waalidka ubadku u dhigtaan isagana free wuu ku baran karaa haddii uu u baahan yahay iyaduna waa fursad kale oo waalidku uu ka helayo qaari online haddaba si aad uga faa'iidaysato casharada qaari online la xiriir ciwaanada iyo telefoonnada shaashadda kaaga muuqda Imara Luxury Homes daldalaal la iskama raace kuwani waa dhismayaasha Imara ee dhaxalgalka dhismayaasha Imara waxay ka kooban yihiin 2 qol 3 qol 4 qol iyo fadhiyadooda guryo dublekisa iyo kuwa penthouses qolka shaqaaluhuna meesha kama maqna iyo wax kasta oo ay xaafad gaar ah u baahnay labada dhisme ay shirkadu hadda gacanta ku hayso dhismaha koowaad waxa laga dhisayaa xaafadda Backland City Park Drive 6th Avenue waxaana uu ku dhow yahay isbitaalka Aga Khan dhismaha labaadna waxa uu ku yaalaa Kilimani wadada madaxtooyada ama State House-ka ee Dunsbury Road wixii faahfaahin ah oo inta dheer kala xiriir telefoonada iyo ciwaanada shaashadda kaaga muuqda soo dhawaada marka la daawadayaal weli waxaad la socotaan barnaamijkii xulashada wararka oo toos idinkaga imaanaya stuudiyaha iyaga koowaad barnaamijyadana waxaad ka heli kartaan bogagga bulshada ee internetka sida YouTube, Facebook, Twitter iyo Telegram. warbixino qoraal ah warar faclooyin iyo macluumaadyo kale waxaad ka heli kartaan bogga internetka ayna ku leenahay ee www.hbnonlinetv.com ku xirna waa jabiyaan oo ka dhigo wehelkaaga wararka intaan u gudbin wararka kale kanaalka kale ee RTV waxaynu soo gelinay sheeko ku saabsan isbahaysigan military ee Sacuudiga uu hogaaminayo ee Soomaaliya iyo Djibouti ay qayb ka yihiin iyo wadamo kale oo fara badan oo gobolka iyo caalamka ka tirsan ma ku guuleysan karaa in qatarta xuutiga wasaadalka loo dhigay meesha uu ka saaro haddaba warbixin faahfaahsan iyo qabiir ka hadlaya arrintaasi ayaynu idiin soo gudbinay barnaamijka markaa dhammaysato dib u daawo barnaamijkaasi aynu soo gelinay kanaalkeena kale ee RTV waad mahadsantihiin waa hagaag wararka kale intaanan eegin gaar ahaan bariga dhexe oo warar waaweyn ay ka soo baxayaan waxaa la sheegayaa waddanka Indonesia habeennimadii xalay in uu ku dhuftay dhulgariir cabirkiisu uu yahay 7.7 iyadoo la sheegayo in dhul aad u ballaaran laga dareemay dhulgariirkaasi wixii ku soo kordha barnaamijyadeena dambe ayaan idinkugu soo gudbin doonaa haddii alla idmo markan waxaynu eegaynaa dhanka Marinka Hormuus iyo xaaladda ka taagan Trump wuxuu leeyahay Marinka Hormuus gabigiisaba dhul Maraykan buu noqon doonaa haddaba aynu eegno wararkii ugu dambeeyay ee amuurahan iyo waxa warbaahintu ay ka qorayso madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa ku andacooday in Maraykanku awood buuxda uu ku leeyahay maamulka Marinka Hormuus isagoo ku hanjabay inuu ku dhawaaqi karo marin biyoodkaasi inuu noqonayo dhul Maraykanku uu leeyahay Trump ayaa waxa uu sheegay in go'doominta dhanka badda ee Iran ay tahay darbi birax wuxuuna ka digay in